الله الرحمن الرحيم مقعي waa Dr. Maxamed Ibrahim Dr. Macruuf maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo 10 hab ama 10 qaab oo hadii aad u noolaatid caafimaadkaaga aad ku joogteen karto haduu Ilaahay idmaayo hababka aan raba inaan ka hadlo inta badan waxay la xiriir doontaa habka nolosha caadiga oo qofka uu nool yahay ama cunnada uu cunayo ha ahaato ama qaabka caadiga uu nool yahay ha ahaato tobankaas hab waxa ugu horeeya waxa waaye qofka cunnada uu cunayo inay ahaataa cunno kala duwan variety of food inuu maalinta qaato cunnooyin kala duwan inuu qaato normally waxa la diidaa waxay tahay hadii cunno isku mid ah oo qofka qaato maalin walba tusaale ahaan maalin walba hadii uu qofka isticmaalayo canjeero kaliya hadii maalin walba isticmaalaysid macnaha ma ka helaysid waxyaalo badan oo jirkaaga u baahan yahay oo vitamins oo fats oo carbohydrate oo wax isku dheelitiran inaad maaragtay kama helaysid qofka normally waxa la rabaa cunnada uu cunayo inay ahaataa cunno isku dheelitiran una badnaataa cunnooyinkan loo yaqaan fiber foodska ama cunnooyinka xoog kale normally beeraha caadiga ka baxa cunnooyinka dabiiciga oo beeraha caadiga laga helo inay u badnaato cunnada uu cunayo qofku waxa la rabaa inuu maalintii qaato vegetables iyo fruits badan inuu maalintii qaato qudaarta noocyadeeda kala duwan inuu maalintii qaato ugu yaraan 5 mar maalintii ama 5 nooc oo qudaar ah inuu qaato maalintii qudaarada sida bagalka oo kale ansalaatada oo kale inuu helaa qofku maxay ahaydii cunnooyin qudaartan si fruits kan sida cambaha oo kale maalintii inuu wax ka qaato tufaaxa oo kale qaraha oo kale normally caafimaadka aad ugu fiican yihiin qofka maalintii inuu qaataa maxay ahaydii cunnada uu cunaaya inuu ka yareeyaa wax loo yaqaan cusbo badan inuu ka yareeyaa iyo inuu ka yareeyaa sokorta inuu iska yareeyaa maadaama qofku uu qaadanayo carbohydrate normally dadka inta badan waxay isticmaalaan sokor badan oo cunnada ku darsan normally qofku xaar fiican inuu iska joojiyo sokorta sababtoo ah waxa imaanaysa cuduradan diabeteska ama sokorta nooca loo yaqaan type 2 oo ku dhici karo cusbo fara badan qofka hadii uu cunnada ku darsadana waxa imaanaya wax loo yaqaan high blood pressure dhiigii inuu kor u kaco pressure-kiisa oo uu ku dhaco qofka dhiig kar iyo wax la mid ah waxa la rabaa qofka maalintii inuu isticmaalo maxay ahayd plenty of water biyo caadi ah maalintii normally qofka waxa la rabaa inuu qaato 1 litir ilaa 3 litir oo biyo ah caafimaadkiisa wax badan ay ka taraysaa waxa jirka ay ka saaraysaa waxyaalo badan oo jirka sunnaha ama waxyaalo badan oo aan loo baahnayn jirka excretion ay ku sameyn doontaa biyo badan marka qofka qaato waxyaalaha kale oo muhiimsan qofku waxa kamid ah inuu normally oo joogteeyaa ama uu la socdaa miisaankiisa qofka inuu asaga isla socdaa waxa la rabaa qofka miisaankiisa inuu ahaanin wax loo yaqaan overweight wax loo yaqaan underweight iyo wax loo yaqaan obesity adultiga caadiga ama qofka weyn sida caadiga ah 30ka age-ka meelahaas jiro maalin waxa laga rabaa normally kg-giisa inuu ahaataa 65 ilaa 75 waa inta caadiga ah loogu talagalay hadii uu ka yar yahay 50 waxa la dhahaa waa underweight hadii uu ka badan yahay 80 iyo wixii ka sii badan wuxuu noqonaa overweight mar walbana waxay ku xiran tahay miisaankiisa iyo dhererkiisa oo la isku qaybiyay waxa loo isticmaali doonaa waxa la dhahaa BMI marka waxa la rabaa qofka inuu isla socdo miisaankiisa inuu normalka uu ku dhaxaaya la rabaa waxyaalaha kale muhiimka ah waxa ugu muhiimsan yani qofka inuu mar walba oo ma aragtay cunnada uu cunayo uu joogteeya tusaale ahaan qofka inuu quraac cuno maanta dirina oo san ka tagin waxa jira dad quraacdi ka tagay ama qadada ka tagay iyadana waxa waaye dhibaato u keenaysa xagga caafimaadka waxa ku dhacaya wax cudurro badan oo loo yaqaan sida peptic ulcer ama boog inay ku samaysto caloosha oo kale waxay keentaa baahida badan ee keeni karto iyo wax la mid ah waxyaalaha kale oo muhiimsan oo qofka inuu helo u baahan waxa kamid ah hurdada oo kale important ay u tahay qofka caadiga maalintii inuu hurdo 8 saac qofka adultiga caadiga 24 saac inuu ka qaato 8 saacadood ama caruurta inay helaan 12 saac 24 saac caafimaadkiisa ay aad ugu fiican tahay memory-giisa ama maaragtay xasuustiisa aad ugu fiican tahay hurdada waxay wax badan ay ka taraysaa jirkiisa iyo qaabka uu nool yahay waxa kale oo muhiim ah in qofka sameeyo exercise free exercise waxa loo yaqaan qofka maalintii inuu hadoo awoodo inuu socon karo wax badan socdaa hadoo san awoodin inuu socon karana oo sameeyo exercise ka caadiga ah 30 ilaa 45 daqiiqo normally qofka maalintii inuu ka qaato 12 saac si caafimaadkiisa iyadan ay u joogto saac cunnadii uu qaatayna ay u sameeysaa digestion iyo absorption fiican jirkiisa oo ugu faa'iideystaa hadii aad hababka aan soo sheegay qofka uu joogteeyaa insha Allah caafimaadkiisa wax badan oo nolol caafimaad leh ku noolaan doona haduu Ilaahay yiraahdo. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh.